بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo khamiisa 5 bisha 2019 waxa qabsoomay shirkii golaha wasiirada ee dawladda Puntland waxa shir gudoomiyay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash shirka arrimo dhowr ah ayaa looga hadlay golaha waxa la wadaagay warbixin laga soo gudbiyay xaaladda gobolka Gaardafo iyo saameynta ay roobabku ku yeesheen gudida gurmadka ayaa soo gudbisay warbixintan oo maqal iyo muuqaal ah waxaana lagu soo bandhigay burburkii iyo saameyntii roobabku ay ku yeesheen wadada la fagorayo ee gobolka Gaardafo golaha waxa ka soo baxay in muddo 3 cisho gudaheed lagu gaarsiiyo dadka deegaankaasi caawimaad isugu jirta raashin iyo daawooyin waxaana wajiga koowaad ee gurmadkaasi caawimaada ah la rabaa in la gaarsiiyo kunka qoys ee ugu horeysa madaxweyne ku-xigeenka dawladda ahna kusimaha madaxweynaha mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxa uu magacaabay guddi hoosaad culimaa oo madax banaan kuwaasi oo qayb ka ah gudida gurmadka ee gobolka Gaardafo waxaana iyagu ay ka shaqeyn doonaan sidii loo dayactiri lahaa looguna qareemi lahaa dhismo iyo dib u habeen lagu sameeyo wadada la fagorayo oo halbowlo ah gobolka Gaardafo golaha waxa sidoo kale uu xoojiyay wargelintii dhawaan ay dawladdu sameysay ee ku saabsanayd digniintii dadka xeebaha degan ee reer Puntland looga digayay saadaal la sameeyay oo la sheegay in roobab dabaylo wata ay ku soo wajahan yihiin dhulka xeebaha ee Puntland dawladdu waxay heegan gelisay kooxaha gurmadka iyo kuwa xogaha ee soo gudbinaya si xaaladda dadka iyo deegaamada loola socdo waxaana dadka lagu wargeliyay inay ka fogaadaan dhulka godadka goluhu waxa uu isu diyaarinayaa oo diyaar garowga ugu dambeysay ugu jira in gudiyada afarta ay golaha wasiirada ay ka kooban yihiin iyagoo aan loo yeerin ay tagaan baarlamaanka dhawaan si ay baarlamaanku ula wadaagaan waxqabadkii dawladda ee 9 bilood ee la soo dhaafay taas oo qayb ka ah wada shaqeynta golayaasha dawladda iyo in golaha xukuumaddu uu shacabka reer Puntland la wadaago waxyaabaha uu qabsoomay iyo horumarka socda ugu dambeyn wasaaradda duulista hawada iyo garoomada ayaa waxa ay golaha la wadaagtay heshiisyada horumarineed ee garoomada diyaaradaha ee Puntland ku socda iyo waliba dib u habeynta iyo dayactirka lagu sameeyo qaar kamida garoomada waxaana arintaasi ka warbixisay wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland aad iyo aad ma mahadsantiin